kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddii nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. sida ilinta aad u cishan karin xaalad murugo ama farxad badan awgeed ay guusha aad ogeyn marka dad ay ku najaxaan ay la mid noqonaysa suurayso adiguba in qof badbaadiyay dad ka badan 100 qof ama ka badan ogaan la'aan waliba sidee ayay u farxad gelinaysaa maqalka iyo kuwa ay gaarto sheekada arintaasi qaybta dambe muuqaalkani waxaad ku daawan doontaan sida ay tani Soomaali badan uga faa'iideysatay kadib macluumaadkaas la faafiyay iyadoo Soomaali badan kansarka noocyadiisa kala duwan uu ku dhaco marka la eego gudaha dalka ama dibadda ku maqnaadaane dad aad u yar oo taariikhda daawada ku suntan ayaa la dhihi karaa waxay badbaadiyeen nolol ka badan inta ay badbaadisay Henrietta Lacks mid ka mid ah haweenka Madoow ee da'da yar ayaa xaq u leh sheegashada macquulka ah taas oo samaysay mid ka mid ah waxtarka ugu weyn ee daawada casriga ah iyadoo aan weligeed ogeyn in iyadu ay falkaasi fashay ama ay samaysay Henrietta Lacks waxa laga helay kansarka ku dhaca makaanka afkiisa 1951 iyadoo 31 sano jir ahayd xilligaasi wax yar uun kadib markay dhashay cunugeedii shanaad waqtigaas cusbitaalo badan oo ku yaala Mareykanka ayaa wali ku jiray xaalka kala sooca dadka Madoow iyo waliba kuwa cadaanka sidaas daraadeed waxa jiray ikhtiyaaro yar oo iyada ay ku raadsato daaweyn ama markii ay bilowday calaamadaha xanuunkaas waxay u leexatay cusbitaalka Johns Hopkins ee ku yaala Baltimore Maryland maadaama uu ahaa kii ugu dhawaa gurigeeda cilmi baare isku dayay in uu kobciyo unugyada aadanaha sheebaarkiisa muddo 10 sano ah isku dayga lagu doonayo in la koriyo unugyada aadanaha meel ka baxsan jirka ayaa ahaa mid guuldareysta laakiin wax yar oo ku saabsan unugyada Lacks ayaa bedelay xalkaasi caadi ahaan unugyada aadanaha waxay awoodaan in ay qaybsamaan ilaa 50 jeer ka hor inta aysan gaarin xilligii ay howlgabka noqon lahaayeen laakiin sheekadeedu sidoo kale mid ka mid ah sheekooyinka ashax ahaan murugsan ayay ahayd sanadkii 1951 fikradda ogolaansho bixinta unugyadeeda lagama wargelin oo lagalama tashan iyada iyo waliba cid qoyskeeda ka mid ah taas oo noqotay wax aan caqli gal ahayn sidaas daraadeed qoyskeedu wax fikrad ah kama haysan tabarucaadkaasi inantooda ilaa wariye 50 sano kadib dib u baaray DNA-ga oo sheeka ka samaysay arinta gabadhani Soomaaliya markaan eegno dad badan ayaa cudurka kansarka iyagu qaba qaarna waaba ay u geeriyoodeen haba u badnaadee sanbabka midka ku dhacay kansarka naasaha gala iyadoo dadka qaar ay sheegaan in xanuunkan dadka badankood ay yihiin kuwa dawooyinkii loo baahnaa aysan helin waana caqabad meesheeda taagan isla markaana dawooyinka ayaa waxa ay yihiin kuwa aan Soomaalidu badankood heli karin daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.